لو ده حصل تعليمينتا iyo ururada bulshada madax dhaqameedyada salaadiinta in la isabaabulo diinta lagu dhaqmo waxaan runtii jecelahay ku soo khatimaa hadalkii Suudaan Sheekh Maxamed Galiyay oo ahaa cid lama dulmeeyo ma doonin cid malmido cidda la dulmeeysana ma yeelayno waa arrin wacan waa arrinkii xadiiska nabiga ahaa ee waqriyay waa walaalka marka uu gardaray yahayna wax weey waa u gargaaraysa marka la gardaray yahayna waad u gargaaraysaa oo marka la gardaray yahay waad u gargaaraysaa garanay laakiin marka uu soo gardaray yahayna waxa weey waad ka qabanaysaa ayuha marka taas ayaa inaga dhaxaysa inaan dadka iska baranay oo madashaan ka soo qayb galay anigoo qaar badan ka mid ah runtii waan ku faraxsanahay waayo anagu markii hore aan soo barbaariyay aan waqooyi ku koray haddana xamar aan weeyay يمكن برضه وين دابا نفتح مع حد مرة نمكي كده حوج وبناء الشيء ترى امتحان كانوا ويسوى صعدانه لما نسوى ده إنه ما ماشي بيطلع نسوى ده منها ده اللي والله برضه ما دش والله هم قيام وحنا الله سبحانه وتعالى ورجينا يا توفيق من هنا ووفجيو وحنا الله سبحانه وتعالى ورجينا مسكو حرنا وحنا الله سبحانه وتعالى ورجينا يا إن صومالي ونبات وكقاضي إن كرسي وحنا دونينه أن يستحترمنا ونقول عنا إن ليالنا لما أنت أديان نوع ما ستين. باشا أديان نوع ما ستين هاي هذا نوع عن أولى جميع عبد الله عبد المركع كما عن إن شاء الله ماما أبو عبد الله يبشر. لا ما مركع نود يقول ما ينوع. أول آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ورت فرحة على اللي منايا. إمتى نضير هذا الكفر الدراسة. عاود يسوع كده فرحة عاود ده أنت فرحة على بنتك. لما يوم جمعت كمان برنا. أهل الدين وين أهل الدعاء وين. وهي كدولة أطلب كسمية من الجناية إلهي دلمي الرالي كماها وهي دلمي أنا كما بحسنايا مركي صلي الله وسلم دولي وارتدك إيانا لما يجي القرآن فريقه أبدا معنا حقا ندري مركا دتك لو لما ينايو أو قوم أما صلي الله وسلم أما كان حلي يدمك أعطاء أما إيران أهاتو niman yahow direen gabdho yahow direen waxaan leeyahay gabdhaha hal baan leeyahay raggana hal baan leeyahay dulmi ma doonayno ummad ma doonayno dadka waa la dirya daaro waxaa la dhihi jiray war dadku waa dirya daaro inta kale naga qaxeeya saasay ahayd laakiin inkastay tahay hadda dirya daaro yahawiye kulli ummad oo dhan ummadda ilaahay waa ummadda ilaahay dadka ina dulmiya raalli maaha dariskaada inaad dulmisa raalli maaha waa laysoo wada dhalay wiil iyo geligo abtigii annaga dir waxaa ina lagu hareersaday tiradii intaan ka badanna allaha nabad yeele yaa abti awoowe areerkii loolaha dagaalba qalba ma qabnaba markaasa reerkeeda geliyo anigaan qudhayda dagaal markuu soomaaliya ka bilo maxamed siyaad la cayriyey baaqura intaan rag gurigayga ku guray jabharaha aan galbeed u dhigay oo ay waryaa la dirina kaxeeya xagga geeya yaa horteena lagu dirine oo qabiilad kala ah waana ehel baan naho waana dhaldhaleen abtigaa hortaada laguma dilay adeerka abtaa laguma dilay awowga hortaada lagu dilay waa faalxumo soo dir weligood awliya yahay weliyaal bay haayeen laakiin hal baa jirta dir fadhiga waa inay ka kacdaa waad aragteen goboladiisaa lagu dhammaanay mooskeedii iyo gabadhii yaraa iyo ilmihii yaraa iyo beertii iyo dukaankii baa dul dhigay caloolxumo laga gubta waayo haddaan nahay haweenka soomaaliyeed codka haweenka soomaaliyeed oo ku hadlay haweenku sirarka waa inay aad u yimaadaan waan dhaliilsanahay ragguna waa inay aad u yimaadaan waa inaan lacag yar iska qaadnaa boqol mana boqol koron haddaan iska qaadno intaan boqol koron bilba hadday dhigto maalinba meel baa cunno lagu geyn karaa ama dhar iyo caawimaad lagu geyn karaa ama isbitaal loogu furi karaa ama iskuul loogu furi karaa
kusoo weynaaday ama kusoo aqliyaysa ama siyaasada Soomaaliya wax badan ka soo qaadatay waxba la ii sheegay hadda waxaa la yaabanay ishaadayna hoos ka soo qaad isbitaalada ay leeyihiin isbitaalada waa eber sariiro ma yaalaan daawo ma yaalaan wax badan waa xasan u keenay xasan kama sugtid بكلام لهم هل نبى استعمال لسجين ناتيسا هل نعتبر ساقط تكاد أولادنا وتكاد أبوين وقفي عنه در مقالته ما نكسر بواقع شبابنا الولاية مكان الولاية ركض معه أحنا كنا يلا عمل عمل خديم وردري أنا قد دجالهم ضد بسعني دجال كتوري ضد كنا وين الحكومة dadkeena waa inaan daafacnaa waa inaan is-ogaanaa dad qof aan u jeedna male laakiin ninkeena soo daakila ilaahay waa gurigaaga qofkii gurigaaga kuugu yimaado ilaahay wuxuu yidhi isdaafac tuuga ducaawo gurigaaga kuugu soo dhaco ama yurub ha ahaato ama soomaaliya waa inaan iska daafacdaa ninkii gurigaaga kuugu yimaado waa inaan iska dacisaa laakiin qof isdilaana oon dambi kaa gelin inaad qabiilnimo ku disho ama dhib kale ku disho waa khalad adna ku guulaysan mayso rag ilaahay waa na siiyey dadna alla waa na siiyey gabdhana alla waa na siiyey war hadday diray fadhiga ka kaca daaweeya dadkiina dhaqaalo u hura isbitaalaadka geeya beerihiina qabsada deegaamadani waa cidlo ku kala xagga wuxuu ka soo ordaya bari meesha ugu dambayso dhulkii uu beerihii qabsaday beertii buu iska qaaday isagaa deganaa weligay deganaa buu yiri hadda magacyay la wada baxeen marka kolley wax yaro guubaana baan rabaa inaan iraado intaa weeyay iga egtahay aniga ilaahay hayna wada guuleeyo shirarkana aan badsanno aan is-ogaano meeshii xaalad joogto meel walba say taha salaadu ay kuugu qabataa loogu tukadaa waa inay diraystaan laysu dhaama aan is-ogaanaa dadkiin aan caawinaa asalaamu calaykum maamo aad iyo aad baa mahadsan hadda waxaan ku leeyahay dhinacii dhalinyarada markaa kuley dhalinyarada waxaa ka bilaabtaa dhinacaasi hadda waxaan leeyahay Axmed Saadir soo dhawo waxay lacagta maamulku dhammaysay gabadha markaa haleyn u qaato waxay qotay sharafo ay sugayaan marka insha Allah waa soo gabagabeynaa waxaan ku macluumaad u dambeeyay hal arrin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ورأيان آدبان الانكبومات إنه أدمانتين إنت شك سوق ونعرسي إنت كقيم كشيء إنت آدبان الانكبومات أبنايا مرحبا inaan waajahla runtii xaqiiqatan inaan qodobo badan ka hadlo laakiin waxaan dareemayaa dadku siduu u badan yahay iyo sida loo baahan yahay nin walba inuu ra'yi inuu ku biiriyo shirkan oo ujeedadiisa ugu weyn horta ay tahay isbarashada iyo kala warqaadashada beelaha dir ee degan magaalada Oslo iyo Norway inteeda kaleeto حقيقة تدركوا هاي سبارتات دي اللي ينادوا وكل ده كانوا الرواية وأول بحلقة ولا نلاقي هذا قري يسوتك هل قري يسوسي ورايا مرة ومرة هنا آد أسي قلقلوا وقت ما واحد جرتي سكاشن يسبح لي هذا تاريخ يرتب والله حمر النقل جبنا وحنا يبدلوا وقوي الصومالي كيمد وهجامنا الله الحديث الرجل هجامنا يوا بديد الدواء والانتهاء من الرسل الصديق هجامنا هاي عبد الرحمن طور يو حشرو يو عبد الرحمن تعالي وصدق النباء كانوا هجامنا يصدق والردي وقتها الصومالي كجريها يا
xamar inta yimaadeen waxaa la yidhi bal dirka koonfureed iyo dirka waqooyi ha isbarteen moogta waxaan aada ula yaabay marka dadku sida uusan aadba u kala socnaynba dhinacii markii laga soo bilaabay xaggoo kale laga soo bilaabay baa nin maxaa la oran jiray saciid cige miyaa aan u malaynaya ciidamada ah yaa dadka tirinayeen cabdiraxmaan tuur inta ka bilaabay maxamed faarax ashar iyo maxali xuseen rafaahi iyo rag casoowe iyo rag inta tirtiriyey oo iyo wuxuu ku soo xijisiiyey nin reer xamar nala ahaa oo xaqiiqatan aniga adeerkaygaba ahaa wuxuu ninkaan waxaa la yihahdaa hebel magaciisa hadda ma rabo inaan sheego ninkaan waa suldaanka habariyoonis loo yiri moogta marka dadku hadduu hoos isku sii warwarsado asaga afar oday mise shan odayaan kala tirsada marka dadku waa dad horta kala fogba ma bahan haddii dib la isku sii raaca marka annagoo dhan meelaan isugu imaanayna aniguna habariyoonis maahaye dadkaa koonfurada waxaa goboladaas mudug ka yimaado moogta marka dadku horta isbarashadu annagu meel dhownaba kala jirno waxaan rabaa inaan ujeedada shirkaan iyo dhibaatada dalka ka dhacday inaan marka ugu horeysa horta aan gudagalo ugu horeyn waxaan la qaadanayaa tacsidii ay fidiyeen walaalihii igu horeeyey ay u fidiyeen dadkii ku waxyeeloobay dagaalada halkaa ka dhacay dagaalada halkaa ka dhacay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo hiiraan dadka soomaaliyeed ee lagu waxyeeleeyey khaas ahaan beelaha direed dadkii dembi la-aanta iyagoo ah guryahooda inta loogu yimid lagu laayay aad baan uga xumahay waana ka tacsiyanaynaa waxaan leenahay intii dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay caafimaad la siiyo taa waxaan la wadaagaa tacsidaas dadkii igu horeeyey waxaan rabaa dhibaatadaas horta soomaalidu waxaa haddaan runtooda la sheegin dhibaatadu waxa ay salka ku hayso waxa weeye daawadeeda lama gaaro dadka hadda for example haddaan ka soo qaadno hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose intaba waxa wax ku laayay waa dowladda soomaaliya ciidamadii dowladda soomaaliya dhaqaalihii soomaaliya ciidankii soomaaliya gaadiidkii wixii loogu talagalay dalka in cadow looga ilaaliyo yaa dadkii shacabka ahaa lagu laayay dowladda ayaa hogaaminaya madaxweynaha hogaaminaya isagaa ciidamada taliyaha ciidamada qaranka soomaaliyeed aa maqashaan madaxweynaha wey nin kale maaha ciidan kasta ee dagaal galaya madaxweynuhu isagaa hogaaminaya ciidankii qaranka inay shacabkii dalka dadka inta baabi'iyaan weliba ka maqasheen madaxweynaha oo ciidanka taliyaha ciidamada qaranka wax raaligelinay uu ka bixiyey in ciidamadii isaga uu hogaaminayo ay dadkii shacabka hadlaayeen maya lagama maqo horta codkeeda miyaa la maqlaa mise waa okay aad baan uga xunnahay in ciidankii qaranka iyo hubkii qaranka iyo dhaqaalihii qaranka in dadka shacabka lagu laayo aad baan uga xunnahay waxaan u baahannahay fariin in loo diro adduunka in loo diro kolley maanta sida rag igu horreeyaba ay sheegeen waa ka sahlan tahay sidii wax laysku gaarsiin jiray maanta waa ay ka fududahay warka halkaan aan ka sheegaynaa adduunkao dhan u gaaraya youtube-ku galaya nin walba akhrisanaya idaacaduhu galaya joornaaladu tagaya waa la ogaanayaa xaqiiqata adduunka waxaan u sheegaynaa weliba guud ahaan united nationka wakiilaaba u jooga asaga soomaaliya magaciisa aada iguma soo maxaa la yihahdaa nicolas ninkaa la yidhaahdo fariinaan u diraynaa united nationka waxaan leenahay dowladda soomaaliya ciidankeedii wuxuu baabiinayaa dadka shacabka ayagaa taageeraya aqoonsiga ayagaa siiyey
OAU-da ama AU-da midowda Afrika ciidamada